inta gobolka waliba waa kuwii ku garab taagnaa oo kuwii garbahaaga ahaa waa kuwa la oran karo yani mar walba Cabdinaasir erey xun uma qoodaan waxa dhibaataa oo wala bilaash kugu shaqeynay oo waligood lacag ku weydiin waligood waxba koodan shaxaad ka qaadan warbaahinta saa ku jaleed waliba hablahoogii inaad dhaawacda wani waxna qabanay maaha anagu wax kale ka ma rabno waxaan ka rabnaa inaad sharciga muxuu ahaa sharci ina kala saar inaad cadeynteedii noo keentid waxaad sheegaysid hablihii waa ku wada taagan ilaa xalay hablaha wareysanay waxba waan ka weynay waxa uu sheegay inay jirto gabadh saxafiyada oo reer Boorama ah isla mar ahaantaasina warkii been abuurka ah ee uu isagu sheegay ka qortay markii uu la xiriirinayo u sheegtay in uu inay iyadu page-keega ku kala kacsanaysay horta waxaasi waa waxaan aqliga saliimka ah ee bini'aadanku uusan marnaba qaadan karin waayo ma jiro qof maxay hatay oran kara page-kan kugu kacsanaya ama page-kan si aan view badan u helo aan adiga dartaa u soo dhigay oo qofna ma jeclo inuu qof bini'aadan hortay soo dhigo taasi wax dhacayaba ilama aha inta kale kadib markii aan anagu dib isku baadhnay haweenkayagii warbaahinta gobolka Awdal aan soo xaqiijinay waxa gabi ahaanba la waayay inay jirto gabadh warkaasi qortay marka laga imaado dadka qaar waxa jiray Soomaaliland oo dhan oo qoraysay warkaasi uu booni sheegay in laga qoray waxa laga yaabaa hadii jiraan hablo wararkaasi soo dhigay inay kala mid ahaayeen hablaha kale ee Soomaali hablaha kale amaba warbaahinta kale ee ragaba ee soo baahinayay warkaasi daba Cabdinaasir Booni waxa leeyahay maanta waxa qofku markuu cirdiqaaga iyo sharaftaada kuugu yimaado waxa waajib inaad istifaacdo waxa uu noogu yimi sharafteedii warbaahineed bulshadeedii aanu adeegaynay seebay bari noo rumaysanayaan marka uu mas'uul dawladeed uu sidaasi bulshada dhexdeedu ka yiraahdo marka gabagabadii kelmadeeda u dambeysay waxaan leeyahay anagu halkan aflagaado iyo hadal iyo caytoona ka jeedin mayno ka waxa leenahay xabadaad sheegtay cadeynteeda la iska rabaa walow aad cadayso mooyaane ku darso oo waxa jirtay mas'uuliyiin hore oo xukuumadda Soomaaliland ka soo haysay xilal oo gabdhaha ay caayeen xilalkoogii ku waayay Cabdinaasir Booni shalay wuxuu hadalka uu yiri waxa dhici karta si fudud inuu isagu yiri laakiin anaga agteeda uu ka weyn yahay waxa uu burburiyay aaminaadii ay bulshadu nagu qabtay marka uu mas'uulku marka Cabdinaasir Booni leeyahay gabadh kamida gabdhaha warbaahinta magaalada Boorama ayaa war been abuur sameysay bari ka maalin ku saxa iyo ku khalada wixii aad sheegtaba cidi kama aaminayso waxaad ahaanaysaa qofkii beenta abuurayay marka waxaan uga baahanahay afayeenka inuu keeno cadeyn cad cidii uu la hadlay iyo cidii warkaasi ka qortayba nagana dul qaado eedayntan guud uu leeyahay hablahaasi war beena ay sameeyeen si anaga shaqadeeda u sii socon karto aaminaadii bulshaduna u sii jiri karto isaga aan uga baahanahay cadeyntaasi inuu soo gudbiyo hadii aan wax cadeynahaynin ay tahay khalad cad uu la badheeray gabdhaha saxaafadda khaasatan gabdhaha saxaafadda ee magaalada Boorama isaga looga fadhiyo arinta raaligelinteeda mid baa jirto sida hore loo sheegayba waxaanu halkan u taaganahay ama aanu sugaynaaba waa cadeyn ah in postigii ama lambarkii aad kala xiriiray ama postigii lagu kala kicinayay sida carabka ku adkaysayba ama postigii lagu kala kicinayayba aad soo sheegto ama weysan hayda arinkaas aad naga soo yara shaki bixiso sidaas darteed dhinaca kale waxay ilaa iyo shalay xilliga waxay ka wada hadlayeen ma jirto gabadh saxafiyad oo kaliya oo uu la soo hadlay Cabdinaasir Booni oo hadii la helo maanta afayeenku gabadh kaliya tuu la soo hadlay ama uu cadeeyo yiraahdo heblan wada hadalay oo igu tiri sidaas aanu qoray waxa hadii la soo helo yani waa batu ma taqaana dhinac loo qaadi karo marka waxa la isla gartay halkan in afayeenka kulmiye looga fadhiyo cadeyn buuxdo oo ku saabsan hadalka uu shalay toole naga sheegay hadaanu nahay saxafiyiinta gobolka Awdal oo u dhan hada mid baa inaan halka ka cadeyno doonayna warka habeenka markii la qoray guud ahaan Soomaaliland oo dhan baa warka baahisay ama wariye ahaado ama cid kale ahaato laakiinse ma jirto gabadh inta Boorama ay warka iyadu ay samaysatay ay qortay baraha bulshada ku baahiso laga sii xigtay ma jirto warbaahinta gobolku wixii dadka kale qoriyay la soo qoriyay uma la mid aha taasina ma hada mid cid gaar ah oo Soomaaliland oo dhan baa warkaasi faafinayay afayeen malaha wadi lowday in qaar kamid ah hablaha gobolka Awdal intay arintaada ay ka damqadeen intay kula soo xiriireen ku weydiiyeen ku dhaaheen arinta maxay ka jira markii dambana cid kasto warkaas soo dhigtay ay la hadleena kula warkaas waa been abuur anaga cadeyn waxba ka jirin warkaa laga saaro dina abaalkii maanta intaan ugu guddo waa wax aad looga xumaado weeyaan
cabdinaasir buuni waxaan leeyahay hadalka shalay kaa soo yeedhay waxa uu ahaa mid deelqaafa mid aan qaban hablaha warbaahinta ee gobolka awdal hadalkaasi hadduu run ahaa waxaa lagaaga fadhiyaa cabdinaasir buuniyow caddaynteeda